ومن السلسلة ومن سبوتدين waxay dhammaan inaad baabisay islisaan ilaahay baabiso ay karaamay runtii waxaad qalbiga ka hoogtaan dareen weyn iyo kalgacal iyo jacayl aan marnaba ka tegi doonin ismaalahay dalkaagu sidaasay kula jecel yihiin Dengan bersama kalau mengatakan daya mereka saja. Hanya hamba yang merasa yang aktif benar. Hanya jangan tahu bahwa kalau masjid mau bekerja. Bahwa pasal kawasan biasanya turun tentang ia berjadikan sebuah kesusahan bahwa itu bermakna ayat yang ada atau nasibnya adalah sebagai syafa'ah yang Muhammad para betul dan Abu Wahid Sayyid Al-Alamin Muhammad Rasul atau nasibnya dan apa yang betul ketika apa kalau itu sudah sebuah jalan واحد مدعي كسيد ورائي بصوت عطيان اليوم الظهر ومن تجعلها لك أيها الصوت عطي انت لكي تسويني انت لكي تسويني السمايون وانت العظيم ومدعين سمايون الحمد لله انت وحين ربك أنت الصومال ويقول من الله كنت الرباء ويقول من سنة تسعة وكذا dengan betul Islam istiqamah yang mana istiqamah sangat yang kabar bahagia orang yang berdoa ini nama pada semua orang yang berdoa dan berdoa orang itu sangat yang bersemangat yang bersemangat dan orang itu berdoa yang sangat ada Quran yang berdoa oh ya dan ada display insyaallah Alhamdulillah ini adalah sebuah rumah terkait apa yang saya ini yang ini saya tahu untuk yang saya ini untuk berlaku ini berarti ia bersama dengan Allah sebagai ia dengan kita berilah sudah kita berdoa orang yang setelah syukur orang yang as wajibnya ya ini kita harus bersama agar bersama kemudian Allah mengatakan Allah sudah berfirman ada tujuan serta ada ini dan
dad badan oo danyara oo gobolkeena degan. dadkaas meelo badan baan isha soo mariyay. xaqiiqatan inta lagu eegaya ee muddooya in garab istaaga waa innaga. haddaynan garabsan garab istaagin oo aynan kaalmayn oo aynan tusin in dadkeeni ay yihiin, waxaan rabaa inaanu qalbiyada isu soo jeesanayn. markaynu ka miskiinka ah, ka danyarka ah, kahiinka u baahan aynu garab istaagno, marka waxaa imanaysaa in dadkeena jecel yimaado, in naxariista ilaahay nagu soo degto. marka waxaan leeyahay inaynan joogno aynu iskaashano haddii ilaahay ka dhigo si dadkeena aynu si dadkeena halka ay dowladda u gaaraan. labada qurbajoogga oo aad u faahfaahsan waxaan rajeynayaa inay ku xiga qaataan in qofkooda oo waddanka yimaada oo dadkiisa u yimaada oo la fadhiista oo markaa qodobkiisa kala shaqeeya sida marka adin maamusa si ka saraysa aad u maamusi doontaan kala qurbajoogga uu hogaasiyaya arrinta insha allahu tacaala. waxaan kala rajeynayaa ka dhigan qurbajoogga reersaneed inaanu iska hogno oo wixii sarafada iyo kalaqulayda dadkeena ah iyo sidii dadka aan ugu soo deg lahay maalgashiga la samayn lahay ama haddii maanta dhibaatada ku dhigooto dad badan oo ilahay dadweynaga waan ka wada hadalay. waan rajeyna billahi tacaala fariimahan aan daraysaan inay gaaraan. idinka waxaan idinka baraya oo idinka badsanaynaa inaad noogu soo koreysaan ilaahay qurbajoogga waddankooda tuso inay wax ka qabsan karaan oo dalkana aan waxba ku noqon karin. aad iyo aad bay mahadsantihiin. mahantii nama soo koobi karo. dadkoodaa tihiin oo dadnimaan waxaad cid inta kala saari kartaa ma jirto. dabaalo dad israalaan badaniyin ama sida waddanka saxaabada waxaa leeyahay tabanaan oo kala fadhiyaan oo markaan furmaha joogto ay maqaaxiirka kasbeeyihiin. laakiin dadka reersaneed markaan joogno gobolka kenya nabadda islaamada leeyihiin inaanu nahay dad madax oo aan la kala saari karin halka markaasu yahay. laakiin dadka gudaheeda Islam